السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياشنا قيمة هي قدرينتا inaga mudan meel kasto joogtaan iyo si walba inoo daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan qodobada warka TV-ga kulmiye ee idin hayno maantana waxa kamid ah Kenyaanka ku sugan Shiinaha oo walaac ka muujinaya iyo sidoo kale to Soomaaliyana waxaan idinkaga haynaa khiyaarta inuu jecelnahay madaxweyne Deni oo ku dhawaaqay shirkadan ah dawladda federaalka Soomaaliya caalamka intiisa kalena waxaad ku daawan doontaan Trump oo shaqada ka ceeriyay saraakiil ku Maqrati Furay qodobadaasi iyo qodobo kale oo xiiso badanba u diyaar garooba ayaan idin leeyahay goordhow ayaad ku daawan doontaan warkeena maanta waxaana wanaagsan markale to daawadayaal ku soo dhawaada qodobadii warka aad maqlayseen oo faahfaahsan waxaana warkeedii la socodsiinaya anigoo ah Cabdicasiis Siyaada Kenyaanka ku sugan Shiinaha oo walaac ka muujinaya muwaadiniinta Kenyaanka ay ku sugan dalka Shiinaha ayaa walaac ka muujinaya cudurka dilaaga ah ee ay dad badan ku dhinteen dalka Shiinaha Kenyaan badan oo jooga Shiinaha ayaa doonaya in ay dalkooda ku soo laabtaan si uusan cudurkaasi u saameynin dhinaca kale dawladda ayaa soo daadgureyn doonin 75 arday oo Kenyaan ah kuwaasi oo ku sugan magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha kadib markii uu halkaasi ka dilaacay caabuqa corona xogayaha wasaaradda arrimaha dibadda Macharia Kamau ayaa waxay sheegtay in ardayda ay ku badqabaan halka ay joogaan dawladda dalkani Kenya ayaa ka cabsi qabta in uu dalkeeda soo gaaro cudurka halista ah ee dilaaga ah ee corona loo yaqaano horay ayay ahayd markii ay Kenya hakisay duulimaadyadii ay ku tagi jirtay Shiinaha dhanka kale to Soomaaliyana waxaan idinkaga haynaa khiyaarta inuu jecelnahay madaxweyne Deni oo ku dhawaaqay shirkadan ah dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ku dhawaaqay shir weyne ay isugu imanayaan reer Puntland oo looga tashanayo aayaha xilli uu sheegay in dawladda federaalka ay dagaal ku hayso shirkani ayaa 15 bisha Maarso ka dhacaya magaalada Garowe wuxuuna Deni ugu yeeray xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ku matala Puntland iyo dhammaan waxgaradka reer Puntland waxaan halka marka jeclahay falanqaynteena oo qoraal iyadoo soo bixi doonta aan ka soo jeedinaya waxa ay xukuumaddu isku raacday inay bulshada reer Puntland u soo jeediso in la isugu yimaado shir wada tashi ah oo looga tashanayo aayaha Puntland iyo mustaqbalka Soomaaliya sidoo uu ekaan lahayd iyo waxyaabaha caqabada ku noqday dawlad dhiska dalka Soomaaliya siday muwaaqif midaysan uga qaadan lahayd waxay xukuumaddu ku baaqday in 15 bisha saddexaad 2020 magaalada Garowe la isugu yimaado shir wada tashi ah oo ay ka qayb gali doonaan dhammaan golayaasha dawladda heer federaal iyo heer state waxaan ugu baaqaynaa xubnaha labada gole ee dawladda federaalka u matala Puntland inay shirkaas ka soo qayb galaan Saciid Cabdullaahi Deni oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boosaaso ayaa sheegay in madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ay shaqo ka dhigteen sidii loola dagaalami lahaa maamul goboleedyada waxaana sheegay in dawladda dhexe ay hantidii qaranka iyo ciidamadii loo soo tababaray in ay wadanka ka xoreeyaan argagixisada ay u adeegsanayso in ay ku burburiso maamul goboleedyada sidoo kale waxa ay halka baaq u soo jeedinaysaa xukuumadda Puntland dawladda federaalka ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Khayre oo ah iyo labada gole ee baarlamaanka in ay dib u milicsadaan hanaanka dawladdu ay ku socoto oo ay wada tashiga iyo falanqaynta arrimaha xasaasiga ah ay ka wada shaqeeyaan inay ka waantowdo waxyaabaha ay ka sameynayso dadka Soomaaliya dhaxgalada aan fiicnayn iyo dhaqaalihii dalka oo lagu burburinayo sidii nidaamka dawladnimo loogu ciyaar lahaa waxaan kaloo halka baaq uga direynaa xukuumadaha dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka ah oo iyaguna aan rajaynayo badankoodu inay marayaan marxalada aad u adag oo ay badankoodu wajaheen marxalada dhaqaale iyo kuwa amni iyo dhulkooda inta badan ay argagixiso ay joogto waxaan la qaybsanaynaa dhibaatada haysata waxaan diyaar u nahay inaan kala qayb qaadano sidoo kale waxaan ku boorinaynaa inay iyaguna kaalin ka qaataan isu keenida dadka Soomaaliyeed
hadda xaalkiisu adag yahay. madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ku eedeeyay dawladda dhexe inay gobolka Gedo ku daabulayso ciidamo ujeedka laga leeyahayna uu yahay caburinta shacabka. Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sidoo kale ku eedeeyay xukuumadda federaalka Soomaaliya in ay baalmartay nidaamkii federaalka ee lagu doortay isla markaasina ay isku soo koobtay arrimihii masiiriga ahaa ee dalka halkii ay wada tashi kala yeelan lahaayeen dawlad goboleedyada sida uu hadalka u dhigay. ugu dambeyntiina daawadayaal caalamka intiisa kale waxaan idinkaga haynaa Donald Trump madaxweynaha Mareykanka oo shaqada ka ceeriyay saraakiil ku Maqrati Furay. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaqada ka ceeriyay ilaa iyo dhowr mas'uul oo dhawaan ku Maqrati Furay intii ay socotay dacwadiisii xilka qaadista. mid ka mid ah mas'uuliyiinta shaqada laga ceeriyay ayaa ah safiirkii dawladda Mareykanka u fadhiyay midowga Yurub. safiirkani ayaa warbaahinta u sheegay in madaxweynuhu ku amray in si degdeg ah uu dalka ugu soo laabto. xubnaha aqalka sare ee dalka Mareykanka ayaa ka soo horjeestay xilka qaadista lagu sameeyay madaxweynaha 45aad ee dalka Mareykanka. go'aanka aqalka sanadkana waxa uu meesha ka saaray rajadii dimuqraadiyiintu ay ka qabeen in madaxweyne Donald Trump uu xafiiska baneeyo ka hor inta uusan dhameysan sanadka u harsan. waatihiina daawadayaal qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay war wixii dal iyo dibad aan idinkaga haynay waxaana warka idin la socodsiinay anigu Cabdicasiis Siyaada intaan ku kulmi doono warkankiisa xiga aniga iyo bahda kulmiyo isku duwanba waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo amaana Allah.